الرحيم waxaan ka warbixinaynaa maanta anoo ah sargaal ka tirsan saraakiisha nabad sugidda Jubbaland khaasatan ee saraakiisha amniga waxaan ka warbixinaynaa maanta in maalmahan dambe ay soo badanayeen waxoogaa amaan darro yar oo ay dadku dareemayaan waxaan u sheegaynaa shacabka deegaanka ku nool khaasatan waxa weeye gobolada Jubbooyinka in waxa weeye amniga la sugi doono oo ciidamada ammaanku si xoog leh u sii xoojin doonaan amnigaas lana rabo qof walba waxa weeye shacabina inay waxa weeye la xoojiyaan ciidamada iyadoo la xoojin doono ciidamadii nabad sugidda ahaa habeen iyo maalin ay sii shaqayn doonaan ayna dadaali doonaan waxaan rajaynaynaa in waxa weeye gebi ahaanba amnigu si buuxda gacanta loogu dhigi doono haddii Ilaahay yiraahdo waxaa kaloo u sheegaynaa shacabka ku nool deegaanka in waxa weeye la rabo dadka Jubbaland diidka ee carqaladaha wada ee maanta ka soo horjeeda ee dhiiga ummadda caadiistay cid la cid ay doonayaan ba ha noqdaan in aan loo dul qaadan doonin waxyaabaha loogu dul qaadan dooninna waxaa kamid ah qofkii gurigiisa ama meel isaga u dhow uu wax ka dhaco in waxa weeye isaga lala xisaabtami doono gebi ahaanna meesha uu ku nool yahay maamulku inuu la wareegi doono oo si toos ah wax weeye looga wareegi doono waxaa kale dadka Jubbaland diidka dadkii ay qabeen ama reerahoodii ahaa ama ay xaasaskoodii ahaa meesha joogay waxaan u sheegaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan iskaga baxaan magaalada oo loogu dul qaadan doonin waxa weeye qof dhiigaagii 24 saac waxa weeye caadaystay ku cunaya habeen walba gurigiisa ku soo dhoomanaya inaan u dul qaadan doonin inuu nagu dhax noolaado mar walbana waxa weeye intuu dhax jiifo haddana waxa weeye wuxuu doono naga dhax sameeyo inaan u dul qaadan doonin dadku marka ha ogaadaan dadka fal dambiyeedka gacmaha kula jira 24 saac inay magaalada iskaga tagaan qofkii dambe ee lagu arko meel uu fal ka dhacay isaga oo jooga ama waxa weeye meesha falku uu ka dhacay dadka iskale ina waxa weeye loo dul qaadan doonin meesha ay ku nool yihiin gebi ahaanba waxa weeye laga wareegi doono waxaan u sheegaynaa marka taas si lagaga nabad galo in qof waliba uu eeriyada uu joogo iyo gurigiisa iyo meeshiisa inuu si buuxda amnigeeda u ilaaliyo dhulalka madmadow waxa weeye sida meelaha leebaajooyinka oo kale geerashada oo kale meelaha aan leeradka lahayn in leerad lagu xiro qofkii waxa weeye meesha uu ku ganacsado ama uu joogo leer la'aan ay ka noqotay meel mugdiga noqotana wax kale aan aqoonsan doonaa waxaan leenahay laga bilaabo maanta waxaan xoojin doonaa wax badan ka bedeli doonaa nidaamkii uu ay ciidamada nabad sugidda ay u shaqayn jireen oo waxyaabo badan ka bedeli doono waana la xoojiyay waxaan rajaynaynaa inaan sii laba jibaarin habeen iyo maalinba waxaan marka dadka leeyahay dadka raba inay noolaadaan oo nabadgeliye helaan oo si fiican u noolaadaan hal la soo xiriiraan ciidamada amniga habeen iyo maalin hawsha loo wada istaago amniga aan wada sugno waxa weeye ninkii amniga isku day inuu khalkhal geliyo kuna noolaado magaalada gudaheeda waxaan u cadeynaynaa isagoo amniga khalkhal gelinaya inuuna ku noolaanin waa gartay hal meel baan rabaa inaad shacabku u jilciso badana waxa dhacday in goob meherad ama goob ganacsi ah ama dad guryo ay degan yihiin oo kale in ama qof lagu agdilo ama qarax miina lagu aaso marka goobahaas ay dilalku ka dhaceen meheradaha u dhow ama xaafadaha u dhow iyo goobaha miinooyinka la geliya xaafadaha ama meheradaha u dhow dadka goobahaas iskala maxaa go'aan oo aad ka qaadateen dad nabad sugidtiin dadka goobaha iskale waxaa go'aan oo ka qaadanay meesha waxa weeye goobahaas dadka iskale hadii ay amniga ilaaliyaan koow waxa u taala horta inay amniga ilaaliyaan oo si buuxda nin waliba waxa weeye goobtiisa haday noqoto meherad haday noqoto gurigu degan yahay waxa waajiba oo saaran si buuxda inuu ammaanka u ilaaliyo meeshiisa iska kantaroolo aroortii uu kantaroolo habeenkii uu kantaroolo qofkii waxa weeye gurigiisa iyo goobta uu ku ganacsanay ilaalin waaye ee fal uu ka dhaco halkaas si buuxda meeshaas waxa weeye inaan uga wareegi doono waxaan u jeedinaynaa horta wax ganacsataa oo anagu ognahay inay waxa weeye faldambiyada hadda ay gacanta kula jiraan ma jiraan laakiin taa waxaan ku soo gaabinayaa qof walba ama ganacsi ha noqdo ama wuxuu doonay ha noqdo qof walba oo faldambiyada gacanta la galo oo lagu soo xaqiijiyo inuu faldambiyada gacanta kula jiro ama goobtu iska lahaa mar walba laga caadaystay waxa weeye faldambiyada laga fuliyo ama uu raad soo galo inay la kulmi doonaan aqoon aad iyo aad u badan inay la kulmi doonaan baan u cadeynaynaa waxaan u jeedinaynaa horta awalan dadka shacabka in waxa weeye amniga la sugi doono saan horeeba u soo sheegay si buuxdana gacanta loogu soo dhigi doono iyadoo waxa weeye ciidamadu dhammaan ay iska garabsanayaan khaasatan waxa weeye laanta nabad sugiddu ay si toos ah hawshaas ay waxa weeye ugu istaagtay laga bilaabo maanta qof dambana waxa weeye oo ugu dul qaadan doono waa reehbel iyo waa fulaan aan ugu dul qaadan doonana laga bilaabo maanta in dib u dambe wax weeye loo arkayn marka waxaan leeyahay dadka shacabka si aad uga gaashaamataan taas
haddaad tihiin kuwa nolosha raba haddaad tihiin kuwa nabadda jecel haddaad jeceshiina si fiican wax weeye raaxala ku noolaataan qof waliba ha ilaaliyo amniga hana u diyaar garoobo inuu amniga sugo ninka waxa weeye amniga ilaalin kari waayo guriga uu degan yahay amnigiisa ilaalin waayo de waxaan dhihi karaa waxa weeye wuxuu u jeedin in amni la ilaaliyo waxaan oo qorshaysnaa wax reebel laga leeyahay way dhamaatay annaga cadowgu waa noo cadow waxa weeye dadka aanu soo qabano aan xidhno waa la baari qofkii uu dambi ku soo bixi waayo cidna waxa weeye wax ma yeelayso laakiin qofkii fal dambiyeed lagu hayo ee ku soo cadaato wax reebelnima iyo wax qof oo loo sii deeyo midna ma jiro aanu sheegaynaa inay ka wantoobaan arrimahaas wax ehelnimo la yiraahdo bataata meena wax weeye ka wantoobaan qofkii dambi aan lahayn dadku wala dhamaan waa wadahel wax weeye qofkan dambi lahayn cidina wax weeye dambi ma saarayso laakiin qofkii dambi leh ehel ma wax qabiilana ma aha ehelna ma aha waxa weeye qof loo dul qaadanayna ma aha in la isku karaamo tirno waxaan sheegayaa danahooda ka qabsadaan cid waxa weeye taas hadii waxa weeye cidii arrimaha noocaas lugaha la soo gashana yani waxa weeye iyaguna ay kiiska wax kala qaadan doonaan oo qayb ay ka qaadan doonaan iyaguna tabagal way jiraan maadaama waqtiyada falalku ay dhaceen waqtiyo oo iska habeen ay ahayd haddana goobaha falalku ay ka dhaceen marka goobo laga agdhawaansan ahayn laakiin waxaan rajaynaynaa waqti kooban inaan ku soo waxa weeye bandhigi doono cid uun falalka dadkii gacmaha kula jiray raad baan haynaa raadadka aan hayno inaan waxa weeye warbixintooda marka la mid ah inaan waxa weeye iyagana aan soo bandhigi doono waxa ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayna meel kasta ay dunida ka joogto inaan idin hayno web design raqiis ah web hosting raqiis ah qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliya oo danaynaya ama shirkad leh ama danaynaya inuu internetka ka sameeyo lacag waxa shirkadda www.disoweb.com idin design gareynaysa sistemo aad ku heli kartiin ama aad ku kasban kartiin inaad ka sameeydiin lacag sida Google-ka iyo Yahoo-ga iyo Bingo iyo meel kale oo badan waxaan kale ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynaa inaan idin sameey doono mobile apps oo ah system cusub oo mobilada sida Android iyo apps-ka maan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan kale ugu bishaareynaa inaan u hayno qofkii danaynayo in uu helo wax la dhaho SEO oo danaynayo inuu search engine-ka yimaado Google-ka Yahoo iyo Bingo markii laga raadinayo alaabaadkiisa oo kale sida Soomaaliya oo kaleeto ama Somali shop inaan number 1 u keeni karno waxaan kale ugu bishaareynaa dadka shirkadaha Soomaaliyeed ee isticmaala Facebook-ga inaan keeni karno numberka koobaad ama aan heli karno ilaa 20,000 oo like ah oo dadka follow gareynayaan marka fadlan hadii aad danaynaysid nala soo xiriir wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh